maxamed aadan saqadhi dabagale taliyaha guud ee ciidanka bilayska Somaliland oo safar ku marayay maalmihii u dambeysay gobolada bariga Somaliland ayaa soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ujeedada safarka taliyaha ayaa sida uu ka dhawaajiyay u daarana dardargelinta howlaha ciidanka bilayska ee gobolada bariga iyo sidii uu ogaan lahaa xaaladda dhabta ah ee ku sugan yihiin ciidanka bilayska Somaliland, isagoona taliyuhu la dardaarmay ciidan weynaha booliska gobolka Togdheer oo uu kala hadlayay qaybta bilayska gobolka Togdheer. waxaan horteeda ku dardaaraya inaynu ilaahay ka baqano sababtoo ah daanu qofku horta wuxuu qof jira noqon karaa markuu ilaahay ka cabsado, markaasaa lagu aamini karaa, markaasaad runta sheegi kartaa, markaasaa adiga laftaadu barakoobi kartaa, xataa ummadda markaasaad shaqadan laguu diray ayaad qaban kartaa. qofku haddaanu salaad tukan qof jira maha, ama jeclow ama nibcow, halkan xataa haddaad fadhida haddaana tukan wax badan oo kale waan ka hadli doonaa, laakiin waxaan idinku dari lahaa qaadka iska daaya. bahalka qaadka laba mushkulada iska daaya. qaadka hadda iska daysaan qofku wuu degayaa, noloshaadu way isbedelaysaa. wixii oo dhan waa wax laynagu soo dhex tuuray, way naga qarribayaan noloshoo dhan. iska daaya. haddaydaan daynayn saddexdii qodobeen wareegtada ka soo saaray ninka lagu qabto anigu maxkamad baa saaraya. rag halkan fadhiya ayaa rag kaleba ciidamada oo dhanna ninkii aan tababar hore soo gelina basic training baa loo furaya 6 bilood baa dugsiyada la geynaya. waa ninkaan tababar hore soo gelin inaynu sakala siga hore imika April 15keeda qofka bini'aadmiga haddaanu wax xigsan horumar ma samayn karo. ragga halkaa fadhiya wada garan maayo, laakiin ninka la soo gudbiyo la yidhaahdo ninkaas waxaas u mutaysta inaan kor u qaado anoo aan dhiirigeliyo ama darajaan ku dhiirigeliyo ama lacag kharash ku dhiirigeliyo. bolis wanaagsan baa la doonayaa oo isbedela oo dadku ka dambeeyo dadkana dhowra iyagu. horta dhammaanteen boolis oo dhan ku amaanaya oo khamriga si loola dagaalamay aad iyo aad baan idinku amaanaya. hay'adda dawladduna naga caawinaysaa inaan ciidan wareega samayno oo Somaliland afar meter halkan oo kale halkaas kale waxa ku toosan ka soo qaadeen baladiga soo qaad meel laga sameeyo may saldhig weeyno kan leego meel lagu maydhalaho xaggaas kale meel laga sameeyo xag afar xadkeena afar meelood oo ciidankaas guuro kolbo 7 digano kolba ka ku maydho oo gaadiid leh oo isgaarsiin leh kuwa inoo tababarayaan direesh bay siinayaan, isgaarsiintana wayna siinayaan, guriyana way noo dhisayaan, gawaadhidana way helina. ciidanka booliska inuu isbedelo, lebiskiisa inuu isbedelo, shaqadiisa inuu isbedelo, dhiiranaan inuu la yimaado, maaragtay qurux la yimaado, himilo uu la yimaado. taliyaha ciidanka bilayska Somaliland Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa sidoo kale kormeer indhaydhayna ku soo maray qaar ka mid ah saldhigyada bilayska ee gobolka Togdheer. taliyaha guud ee ciidanka bilayska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa muddooyinkii u dambeeyay safarro kala duwan ku marayay gobolada bariga Somaliland. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Ariel TV, magaalada Burco.